salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu golaha abwaanada gaadh shansa. waxaan rabaa inaan halkan kusoo gudbiyo maansadii sheeko gaaban iga gura oo hordhac u ah silsiladda guux dhegeyste. iyadoo qoraalana waan soo gudbiyey, marka insha allah iyadoo codan idin soo gudbiyo. ilaahay markii waa waqti dambe, waa 11 iyo 8 daqiiqo saacadda geeska goorsheegta geeska afrikada bari. waa hagaag, waa galab isniinoo goorsheegtu labadii dul gurguuranayso golihii abwaanada gaadh 5 ahaa waanu kala godoono indhoweyd ma soo gelin. telefoonka gacanta iyo internetka go-an oo haddaan buurta guudkeedii iyo gurdeeda lala tegin ammaangeeda lala korin waxba sooma galayo. khadku waa gabaabsiye aw faarax guuriyo gaas iyo xabiibiyo gabadhii kubra ahayd geele iyo sawaaxili gidagood abwaanada inta gololka fuulka jiiftadu ha gaadhee. waxaan soo gudbinayaa maansaan gugii hore guux dhegeyste ula baxay. idinka godkeedii iyo guntimaha furfuraya ee murti aan la goohay iyo sheeko gaaban iga gura. gorgor laydha ka cabaan shalay galabtii kulano wuxuu yidhi galdogob iyo garowiyo nugaal iyo gaarisiyo wajeer iyo goonyaha jabuutiyo garbahaare iyo xamar. goor dhowaan ka imid oo waayadanba giraantii gebi bay ka lulataa. gobolada barhkood buu garan waa ka baxayoo guumays lamaaniyo guuguluhu ka ciyayaa. geelii 5 ahaa qaar baan la kala garan galoofta iyo hasha irmaan. qaarna wuu galbadayoo gudcur 15 gelin dhexe la faasaxay. qurxan waa ta-olasha ee hashii goloska dheerayd. geeljiraha faraxsani gaawaha u culan jiray. dhuug baaba ganayo way gadaama dhabataa. gaaweeta daxaliyo gardeel bay ku maalaan gujana waa u dheer tahay. awrkii gulguladiiyo geedada ballaadhnaa guuxii safiintiiyo galowguba ka caban jiray. wuu galangalcoobo goroflagadka hoosiyo gomaduhu ka xidhan yahay kamana kaco gelgelimaha. baddii gacankan weyneydna gujis baa dhex yuurura. wuu goosmay adhigii sabeen gorod madow iyo wan galaalan baa maqan garasharax ma joogtee ma gududana cunay. kolihii abwaankiiyo garhwadeenka dhaqankow idinkaa godkeediiyo guntimaha furfurayee murti aan la goohay iyo sheeko gaaban iga gura. oday guurtii aa yidhi riyaheenna go-ay iyo waxaraha kan geerida guntimaha mareegta ugu wacan galgalashada. waa halka ay soomaalidu ka tidhaahdo waxaraha wedka mareegta u dheer. hagaag, gabadhii gorda ahaydna waxay tidhi guyaal badan waxaan guudka feedhaba kolba nimaani geyinbaa la ii guuriyaayo iga fura garayskee. away geesiyaashii gabadhii la ciilo iyo tii la dhabar garaacdaba ka gadoodi jiray ee gacantooda kululeyd. garhwadeenka dhaqankiyo golihii abwaankiiyo garhwadeenka dhaqankow idinkaa godkeedii iyo guntimaha furfuraya ee murti aan la goohay iyo sheeko gaaban iga gura. cudurkii fardaha galaa haddii awrta laga gubo gamaanku kuma bogsoodee gacal iyo sokeeyow warka soo gudbiyo oo maxaad galabta joogtaan geyigii ma nabadba. aada iyo aad baa idin salaamayaa golaha abwaanada afka iyo dhaqanka ee gaadh shansa.
ومختار شيخ عبد الهادي حاج أحمد مختار حرقو وإذن إن الله معنا ومعكم اسم دافنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.